السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kanaalkeena haddii aad tahay markii ugu horeysay subscribe dheh muuqaalkeena maanta ku saabsan oo maanta iyo casharkeeni labaad ayaan gudageli doonaa ee koorsada free English course ama free language course English, taasi hordhaceygii aan horey usoo qaadanay. Hadda waxaan bilaabanaa qaybteedii labaad. Okay saxaabi, welcome. Marka la rabo in shay la barto sideedaba waxaa loo baahan yahay system ama nidaam qofku uu isticmaali karo, ama waxa loo yaqaano simple system. Waad aragteenoo marka luuqadda noqoto for many positions baa lagu dhigtaa luuqadaha, ama bareefado badan ama brevet ha ahaato ama kuwa government ha ahaato ama canales ha ahaato. Barashada luuqadaha ama Englishka internationalka ah ama Arabic-da luuqadda labaad ama luuqadda kooda Islaamka ah ha noqoto, ama Faransiis iyo Swahili iyo waxa weeyaan Portugiiskay doonta ha ahaatee ama Amharic ba ha ahaatee Ethiopiani. Luuqad marka la baranayo sideedaba nidaam ay leedahay iyo system lagu barto. Wayna kala duwan tahayoo waxaa jira simple systems. Brevet qaar ba waxay isticmaalaan simple system. Waad aragteen ardayda qaar ba kumanaan sano bartay luuqad ama luuqadda English oo kale, haddana aan ku hadli karin, aan turjumi karin, aan macnayn karin. Okay, waxaan rabaa inaan isticmaalno system global system la yiraahdo oo adduunka ku cusub, meelo badanna ka shaqeeya sida United States oo kale iyo United Kingdom iyo adu qaaradda America. College badan oo sida California and Oxford qaybteeda languages ay isticmaalaan waxaa loo yaqaanaa global system. Yacnihii ama waxaa loo yaqaanaa simple system waa loo yaqaanaa systemka fudud macnaha. Haddaba aan isla kaalino computerka balan eegno bilowga iyo systemku siduu yahay, kabacdina waxaan gudageli doonaa sharaxaadda casharanteena. Let us start. Aan bilowno haddaba. Casharkeena maanta wuxuu noqon doonaa cashar kooban oo bilow ah oo ka turjumi doona systemka iyo nidaamka aan wax u dhigi doono iyo ardayda ku soo xidhmi doonta kanaalka siday uga faa'iidi doonaan. I profit. Waayo meel kastood joogto ama meel uu qofku aadayo wuxuu rabaa inuu profit ka soo helo. Sidaa daraaddeed kanaalkan for more information ma ka faa'iidi doontaan macluumaad badan about education ku saabsan waxbarashada. Markaa waayahay suna muuqaalka haddaba u dheeraan aan bilowno koorsadeena maanta. Soo dhawaada. Waay markaan raacna systemkeena aan ku soconna haddaba casharkeena maanta. Our lesson today about short conversation. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay conversation, wada sheekaysi ama erebixinta luuqadda Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa wada hadal gaaban ama isla hadal gaaban ama waxa weeyaan wada xidhiidh gaaban ama kooban. Luuqadda Soomaaliga waa luuqad aad qani u ah, marka eri badan baa iska isticmaali karnaa. Eriga short waxaa loo isticmaalaa wixii tusaale ahaan kooban ama gaaban oo kale. Xagga cabirka waa gaaban, xagga nuxurkana waa kooban. oo macnaha short waa macnaha wixii haddii lagu dhaho tusaale ahaan oo kale you can ask me a short question. Waxaad weydiin kartaa su'aal kooban. Macnihii su'aashaad weydiinayso nuxur ahaan way u kooban tahay, qoraal ahaan iyo system ahaanna way u kooban tahay. Sidaa daraaddeed erigan short waa kooban macnaheeda. Conversation waa wada hadal. Aan ku bilowna haddaba Cabdi baa bilaabay ninka la dhaho magaciisa wuxuu yidhi how are you? Sidee tahay? How are you? Sidee tahay? Ninka la yidhaa Caamir ayaa wuxuu yidhi I am fine. I am fine. Anigu waan fiicanahay markaasi ayuu yidhi. Cabdi baa wuxuu yidhi what are you making now? What are you making now? Maxaad samaynaysaa hadda? Caamir wuxuu yidhi ninka la yidhahdo nothing, waxba. I am walking my house. Gurigaan tegayaa. I am walking waxaan u socdaalayaa anigu
my house gurigayga. cabdi baa wuxuu ihi goodbye nabadgeliyo. caamir baa wuxuu ihi also sida oo kale ama la mid ah nabadgeliyo markaas adiguna. aan ku celiyo mar labaad. short conversation waa conversation ama wada xidhiidh gaaban ama wada hadal gaaban markaas. how are you uri cabdi ninka la idhaahdo sidee tahay. ninka la idhaa caamir wuxuu ihi I am fine anigu waan fiicanahay markaas. I am fine anigu waan fiicanahay markaa. cabdi baa wuxuu ihi what are you making now. what are you making now. what are you making now maxaad samaynaysaa iminka. maxaad qabanaysaa. caamir wuxuu ihi nothing and I'm walking my house. waxba ee gurigayga ayaan u socdaalayaa oon u safraya ayuu yidhi. cabdi baa wuxuu yidhi goodbye nabadgeliyo. caamir baa ninka la idhaa wuxuu yidhi also sida oo kale. ereyada ku jira mawduucan waxaan kusoo qaadananaa iyaguna sidoo kale qaybta okay haddaba islegna ereyada mawduuca ku jiray ama conversationka aan soo qaadanay ku jiray. new words ereyo cusub. ereyga words waa ereye markaa. ereyga newna waa cusub ama waa wax qofka ku cusub ama ha ahaato ereyo cusub ama ha ahaadaan kuwa ku jira markaasi casharka. waa new words ereyo cusub. ereyga koowaad waa go waa tegid markaa. ereyga labaad waa to waa qabasho. ereyga saddexaad waa good waa wanaagsan ama wax fiican markaas. ereyga afraad waa work walk lama odhanayo elasha lama akhrinayo walk baa la odhanayaa waa socod ama socdaalid. ereyga ugu dambeeya ee shanaad make waa samayn markaas. ereygaasi waa make waa samayn. new words ereyo cusub. go waa tegid. do waa qabasho. good waa wanaagsan. walk waa socod. makena waa samayn markaa.